barqanimadii maanta ruux isku soo xiray walxaha qarxa ayaa waxa uu isku qarxiyay bar control oo ku taala agagaarka isgoyska kilomitir 4 gaar ahaan ciidanka nisa goob ay ku sugan yihiin oo laga ilaaliyo garoonka diyaaradaha aadan cadde ee Muqdisho. xilliga qaraxa uu dhacayay waxaa goobtaasi marayay taliyaha saadka ciidanka xoogga dalka Generaal Garabey, wasiirka haweenka Xaniife Xaabse iyo gudoomiyaha degmada Warta Nabadda Seynab Xaabse iyo mas'uuliyiin kale. afayeenka ciidanka booliiska Soomaaliyeed Cabdifataax Aadan Xasan ayaa waxa uu gaaray goobta uu qaraxa ka dhacay waxaana ka warbixiyay sida uu ku dhacay qaraxan iyo qasaaraha uu geystay. shakhsi isku soo xiray walxaha qarxa oo nafti haliga ayaa wuxuu si toos ah u beegsaday gawaaridii taagneed checkpointiga gawaaridaas oo uu ka mid ahaa gaari uu saarnaa Generaal Garabey oo sida idin muuqata uu rabay inuu daaqada ka qabsado balse gaariga oo ahaa baabuurtan xabada karin awgeed ilaahay nooga badbaadiyay jananka uu caafimaad qaba wax dhibana ma jiraan waxaana ku dhaawacmay ilaa 7 qofood oo la kala geeyay isbitaal Madiina iyo Digfaar oo ilaa hadda dhaawac kale waa la raadinay sababtoo ah magaalada qaybo kamid ah xirneed awgeed labada isbitaal oo furnaa la aadi kar labadaas ay ahayn labadiina waxa laga soo xaqiijinay 7 qofood oo dhaawac ay yaalaan. waxaan rabaa bulshada Soomaaliyeed inay xaqiijiyo waxa loo socdaa haday ahaayeen in la beegsado xarun dawlo ama xarun ay ku shaqeyso hay'ad dawladeed ama askar ay ka shaqeyso maanta inay tii soo dhaaftay waxa xaqiiq idin ku filan hadii bari control laga xiray bulshadana loo fasaxay inay wadooyinkoodii maraan xilli ay socoto doorasho oo dalkana doorasho uu ku jiro in checkpoint laga control bulshada Soomaaliyeed safarka ah ee rabta inay u duusho gobolada kala duwan ee dalka iyo dibaddaba checkpointigaas oo ciidanka lagu amray inay u nasteexayaan dadka oo ay wareystaan jeekimaan in shakhsi nafti haliga ay kooxaha argagixisada ah u soo diraan inay bulshada Soomaaliyeed dhibaateeyo. Mukhtaar Cabdi Aadan, Real TV, Muqdisho.